بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channelka YouTube-ka Aslaxa Basaafi waxaan idin soo gudbinayaa qisa aad u cajiib badan. inta aanan guda galin fadlan subscribe saar channelka si ay kugu soo gaaraan muuqaalada aan soo geliyo kambaneelka taabo si aad ugu noqoto qofka ugu horeeya oo daawada shardeh si aad ula wadaagto asxaabtaada. walaalayaal maanta qisadeena waxaa ka mid noqon doona haddii ilaahay ka raali noqdo markii oo muslimiinta la cadaabayay iyo markii oo عمار بن ياسر هو يديسي أبيه سلدلاي أو لعذاباي إيو مركي مسلمين تلا أمري إني كهجرودان مكة أو أي آذان دولك أو حبشيغا رون أهانتي مسلمين تآد أي يريهين لكن دتك دبرا عيون أيا بدن دتك دبرا عيون وقال هذا قدام بنتي وحي إمادان مكة الباب كيسة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. أبعدوهم عن الكعبة. ولا أنتم أبعدوهم عن الكعبة. وحير قدال هدان أنخنو زيد وحو لهاي قل يا أيها الكافرون ما أنا دمين سورتك بعد خوف كان أيا إمالي وكالة توري كديري كعبة أيو لهاي وحو لهاي خيلق استاجية خوف كان أو بين لوغة أهوا إناد إدبسان خوف كاسن وحال جيدي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابته وين حين وحي لهين بدبادية النبي صلى الله عليه وسلم بدبادية النبي أيا بدباديين markii dadkan saas loo arkaayo waxaa loola jeedaa nabiga inay badbaadinooyeen sallallahu alayhi wasallam asxaabta ayagoo la garaacayo mushrikiinta mid ka mid ah wuxuu dhahay xamza ayaa imaaday xamza qofkan aad u jeedaan waa xamza nabiga sallallahu alayhi wasallam adeerkiisa xamza waxaa ka mid ahaa geesiyiinta qurayshta geesi ayuu ahaa xamza waxaa la oran jiray asadallah kadib abaajahal waa naxay mushrikiintiina dagaalka way joojiyeen run ahaantii xamza waxaa ahaa mid aad iyo aad looga baqo wuxuu ahaa qof oo geesi ah xamza faraskii waa ka soo degay waxaa u soo socdaa abaajahal xamza asagoo soo socda wuxuu arkay asxaabtii sida loo galay iyo sida loo baabi'iyey iyo sida loo garaacay xamza kadib abaajahal waxa uu dhahay adiga nacas baa tahay sideed ula dagaaltamaysaa dad oo hub aan wadanin abaajahal wuxuu dhahay waxay rabaan jaahilnimadooda inaa soo daahiro xamzana wuxuu dhahay adinka yaa idinku jaahilsan ma waxaad xarimaysaan hadalkii saxa ahaa abaajahal wuxuu dhahay maxamed waa beenlow ka bacdi xamza waa dharbaaxay abaajahal xamza wuxuu dhahay haddaa awood leedahay iskaaga celi kaali markii abaajahal la dharbaaxay qurayshta way cabsadeen xamza waxa uu dhahay yaa awood leh aniga iskaaga celi karo kaali ha ordina iskaaga celiya dadkii dhan way cabsadeen way kala ordeen ugu dambeyntii xamza waxaa dhahay anaa ku jiraa diintii muxamed yaa iga saari karaa oo awood leh kadib qurayshta way kala carareen way cabsadeen maka albaabkiisa way firaaqeeyeen kadib xamza waxa uu imaaday nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu dhahay wiilka oo walaalkayga dhaliyow habeenkii markii la gaaro ilaahay waxaan ka baryaa dadkan afar albaab in oo kala saaro hinda markay ay maqashay xamza inuu galay diintii nebi maxamed hinda waxay dhahday qamra cab ayuu ahaa xamza iyo hogaamiyeyaasha libaaxyada dhammaantooda diinta oo nebi maxamed ayay soo galeen markii cadaabta uu kordhino geesiyaal ayay sii naqanayaan abaa sufyaan wuxuu dhahay sidaas hadday tahay aan ka bilaabno dadka oo daciifiinta ah kadib mushrikiinta waxay bilaabeen inay cadaabaan dadka daciifka ayaa cadaabta ay ku bilaabeen cadaabtani waxaa lagu bilaabay camaar hooyadiisa iyo aabbihiisa camaar wuu cawaaday albaabka iga fura dhaafa hooyadayda aabbahayga dhaafa ayuu leeyahay camaar markii oo kheliga oo badiyey abaajahal guda ayaa galay camaar asaga naftiisa xataa waa la soo waday waa la cadaabaa camaar waxaa lagu xiray geed لا إله إلا الله محمد رسول الله. camaar markii geedkan la tusiyey waxay rabaan inay caabudaan asagana wuxuu dhahay laa ilaaha illa allah muxamed rasuulullah haddana waxaa loo imaaday camaar aabbihiisa waxaa loo dhahay ilaahaygeyna wax fiican ka sheeg ilaahaygeyna caabud camaar aabbihiisa ka bacdi wuxuu dhahay ashhadu an laa ilaaha ila allah markii loo dhahay caabud ilaahaygeyna camaarni waa ooyey aad iyo aad haddana hooyadiisa in la dilo ayaa la rabaa qolkaani waxaa lagu soo xiray dadka muslimiinta oo ducafada ah dadkan qolka ay ku jiraan dhammaantooda waxay leeyihiin ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah waxayna maqlooyiin camaar hooyadiisa kheeligeeda asagoo naftiisa badbaadinayo waxaa magacaabay ilaahyadooda oo ahaa hubal
ka bacdi waxaa loo imaaday camaar hooyadiisa waxaa loo dhahay ilaahaygiina weynaay oo ahaa hubal magacaw hubal لا إله إلا الله محمد رسول الله. kadib wuu xanaaqay abaajahal dulli baa tahay ayuu dhahay wejiga cantuf ayaa lagu tufay waa xanaaqay abaajahal kadib wuxuu soo qaatay geed oo waran ah caloosha ayaa ugu geliyey wuxuu dhahay ilaahaygii midka ahaa aawe ha ku badbaadiyo kadib markii dadka la baabi'iyey waxaa imaaday xamza iyo asxaabta maxaa yeelay asxaabta waxay maqleen dadkooda in oo meel cidla lagu baabi'iyey xamza wuxuu arkay camaar aabbihiisa oo xirig lagu dilay haddana wuxuu arkay camaar hooyadiisa oo dhulka ay jiifto xudayfi shaarkiisa inuu soo siibay ayaa ugu daboolay kadib waxay maqleen camaar oo nool oo dhahaayo kadib xamza wuxuu soo orday muslimiinta qolkii ay ku xirnaayeen kabacdi wuxuu dhahay ka soo baxa halkan xamza kabacdi gudi ayaa soo galay wuxuu arkay dad badan oo dhinteen oo daciif ah camaarna waa laga gaarsaday biyo ayaa la siiyey nafta ayaa ilaahay ugu soo noqay camaar wuxuu arkay hooyadiisa iyo aabbihiisa oo la dilay zayd camaar wuxuu dhahay nebiga sal allahu alay wasalam wuxuu dhahay sabra aalulyaasir hooyadaadii aabbahaaga jisigooda waa janno zayd wuxuu dhahay waa kanay nebiga ayuu imaaday sala allahu calayh wasalam sidii hore aan idinku soo sheegay nebiga lama arkaayo muuqaalkiisa lama arkaayo hosaarigiisa lama arkaayo codkiisna lama maqlaayo camaar wuxuu dhahay yaa rasuulullah sidee madaxeeda kor aan u soo qaadaa maxaa yeelay ilaahaygooda ayaan rumeeyey adiga ayaan ku beeniyey waxaa loo dhahay khalid ma leedihid hooyadaada aabbahaadani janno ayaa loo ballan qaaday markaan filinka waxaa loola jeedaa jacfar waxaa la hadlooyaa nebiga sala allahu calayhi wasalam kadib waxaa imaaday xamza wuxuu dhahay halkaan ammaano ma jiro kadib jacfar wuxuu dhahay nebiga waxaanu amray maka inaan ka tagno aan ka haajirno xamzana wuxuu dhahay ogaada inta haddaad joogteen halhal ayaa idin dilaayaan jacfar kabacdi wuxuu dhahay nebigu wuxuuna amray inaan aadno dhulka oo xabshiga ah maxaa jiraa boqorka oo jooga waa boqor aad iyo aad u fiican oo amni ah kadib xamza kor ayuu fiiriyey xamza waa dagaalyahaan wuxuu dhahay hadda hala baxo kadib asxaabtii way baxeen waxay gudi galeen inay ay safraan dhulka xabashiga camaar asagoo fiirinaayo maka kabacdi jacfarne wuxuu leeyahay saanta ee fududeeya jacfar waxaa fiirinoyaa jidkii oo lagu bixi lahaa waddada maxaa yeelay mehan waa meel oo saxaraa oo waddadiisani si fiican loo kaseenin kadib waa neebsadeen qofkan waa waxaa qabtay ayagoo dhan ayaa qabtay kadib ayagoo meehii fadhiyaan waxay arkeen ciidamada oo quraysh oo ay imaadeen way ordeen waxay ku dhuunteen buurta ama carada hoostiisa halkaas ayay ku dhuunteen ayagoo cabsanaayaan maxaa yeelay muslimiinta waa dad aad iyo aad u yar farda ma haystaan hubni ma haystaan dadkan farda iyo hub ayay haystaan ugu dambayntii way jiriyeen dhinacyaha ayuu fiiriyey waa waayeen way naqdeen dadkaani ilaahay ayaa ammaan yeelay filinkaani waxaa liidinku soo turjumay stuudio saafi oo ku yaala dalka talyaaniga gaar ahaan magaalada baadabo iyo anigoo ah walaalkiina aslax aba saafi walaalahayga xoogahoo qisada haddaan gadaal u naqano markii oo camaar bin yaasir oo hooyadiisa la dilaayey aabbihiisa la dilaayey labadaas waxay ka mid ahaayeen taariikha islaamka haddii lagu dhaho islaamka yaa ugu horeeyey shahiid oo ku dhinto ama shahiid lagu dilo waxaad leedahay waxay ahaayeen camaar bin yaasir hooyadiisa iyo aabbihiisa oo la odhan jiray yaasir hooyadiisana oo la odhan jiray sumayah lamadooda ayaa ugu horeeyey dadka oo lagu dilo jihaad dadkaas ayaa ugu horeeyeen